kadib markii ay wasaaradda ciyaaraha Somaliland dhawaan ay ku dhawaaqday inay bilaabayaan wajigii labaad ee koobka gobolada Somaliland ee laga bilaabi doono caasimadda Hargeysa ee geega Somaliland ayaa waxaa durba la dardargeliyay xulka gobolka Gabiley oo bilaabay alamiitada kubadda cagta basketballka iyo orodada iyagoo ku hanweyn xulka gobolka Gabiley inay koobka gobolada Somaliland keeni doonaan gobolkani Gabiley maraan ugu kuurgalnay xabsigu socodka training-ka ay qaadanayaan xulka gobolka Gabiley ayaa waxaanu booqnay garoomada ay ku ciyaaraan labada xul ee cagta iyo basketballka waxaana aan wax ka weydiinay diyaar garowga ay ku jiraan kabtanada xulalka gobolka Gabiley iyo tababarayaasha waxaana yiraahdeen macallinkii gobolka halkan waxaan mahadcelin ugu soo celinayaa isduwaha gobolka xildhibaan Mahdi oo hadda ila jooga oo shaqadan aan ku jirno iyo training-kan aan ku jirno ee gobolka had iyo jeer ila jooga shaqadan ay lahaya kaalin muhiimana iigu jira waxaan mahadcelin aad u weyn u celinayaa maayarka degmada Maxamed Amiin iyo barasaabka gobolka kaliyaha qaybta waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaantood sida wanaagsan ee hufan ee ay gobolka had iyo jeer noo garab taagan yihiin ee ay shaqada noola hayaan waxaan mahad gaar ah u soo jeedinayaa xildhibaan Mahdi oo had iyo jeer shaqada gobolka kaalin muhiima noogaga jira maadaama maanta aan ku jirno training-kii haddana aanu imika ku jirno ay training-kii ay wadaan dhalinyartu waxaanu diyaar u nahay ama aanu u diyaar garoobaynaa oo aanu processkii aanu ku jirnaa hadda sida aanu ciyaaraha gobolada ee ka furmi doono 27 Oktoobar bisha ee soo socda hadduu ilaahay raahdo caasimadda Hargeysa waxaanu aad ugu rajo badannahay doorkan anagoo aad ugu diyaar garownay in aanu ka soo bixi doono kaalin muhiima oo aanu aad u rajaynayno in aanu meel fiican imaadno oo aanu koobka tartanka lagu jiro doorkan aanu gacanta ku soo dhignay hadduu ilaahay raahdo maadaama aanu u soo galnay dadaal fara badan oo aanu hadda ku jirno oo aanu doonayno inaanu dadaalka faraha badan leh iyo tabarta faraha badan leh ee ay dhalinyarta ay hayaan inaanu ka faa'iideysano doorkan oo aanu doonayno inaanu koobka ku qaadno hadduu ilaahay raahdo aadna waxaanu rajaynaynaa inuu ilaahay guushana garab dhigo anigoo ah tababarihii kubadda kolayga gobolka Gabiley waxaan rajaynayaa insha Allah inaan guul ka gaadhno anigoo ku kalsoon ciyaartooyga sida ixtiraamka iyo sharafta leh ee wada shaqaynayno insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa guul waxa weeye horta wixii qoran ayaa dhacaya qadarka sinaba laguma seegi karo laakiin awoodda kubadeed uu maanta gobolka Gabiley uu leeyahay waa awood aan ku muujin doono stadiumka Hargeysa waa awood ay arki doonaan dhammaan dadweynaha shaashadaha ka daawanaya qaab ciyaareedka aan u ciyaarano waa qaab ciyaareed ka duwan qaab ciyaareedda gobolka looga ciyaaro taas oo inoogu horeyso dhammaan sportiga gobolka macallimiinteeda iyo xildhibaanadeeda maayarkayga degmada oo iyo macallimiintii hore intuba waxay heeliyahooba sanadkan la garab taageen ciyaartooyada gobolka Gabiley si ay u kadi lahaayeen gobolkan guul gobolkan waxaa ka go'an sanadkan inuu koobka qaado ilaahay aan ugu asturay dadaal iyo awood dheeraad oo gobolada kala dheernay daraadeed ayaan tartankan gobolka ugu tartamanay inaan koobka qaadno Hargeysa marka la joogo waxa la yiraahdaa Gabiley iyo wax saasa qaadas kulli meesha dadweynuhu inta badan ay u badan yihiin uma focuskuna saaran sanadkan waa sanadkii gobolka cagaaran man oran lahaa ee gobolka Gabiley koobka la keeni lahaa hore ay qaadeen fiicanaya maanta diyaar u ah inay qaadaan koobkooda labaad kooxda kubadda kolayga jirahan iyo kubadda waa diyaar aad baan ugu faraxsanahay sida xildhibaanadeeda iyo maayaradeeda iyo tababarayaashooda noo garab taageeraya iyo taageerayaashooduba guul baan rajaynaa gobolkayga oo ka bixin doona haddii kale waxaanu waraysi la yeelanay isku duwaa wasaaradda ciyaaraha gobolka Gabiley iyo xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi oo ka waramay diyaar garowga koobka gobolada Somaliland runtii maanta waxaan sameynaa oo dhawrkiisa kubadda cagta oo noo dambeeyo orodkii iyo basketballkii runtii sanadkoodii oo maamulsan inaan dadkii isku wada keenno adeega xildhibaanadii waxay tahay dadkii hore ee khibradu lahaa runtii sanadkan waa sanadkii Gabiley ay qaadisay kubadda cagta iyo basketka iyo orodkaba waxaan dadweynaha faraynaa aan leenahay kulli hiilkiina iyo agtoogiina waan u baahannahay waxaan uga mahadnaqnaa qaraxsada gobolka taageerada magaalada joogaan walaalahay ka joogaan waxaan leenahay barbarkay ka baxdaan waa barkay la qaleen dinkiina kuna kasoo dhalaala tababarkii kooxaha iyaga gobolka Gabiley u ciyaaraya
iminka waxaanu ku sugannahay kooxdii kubadda cagta oo aad iyo aad kalsooni buuxda aan uga qabno oo aanu ku kalsoonnahay tamarteeda iyo awooddeedana aanu gelinay haddii aanu nahay golaha deegaanka waxaa kaloo aan leenahay waxaanu ku kalsoonnahay oonu aad iyo aad u aaminsannahay in aanu koobka la soo mari doono laamiga madow ee isku xidha caasimadda Hargeysa iyo Gabiley taas waa tu aan ku kalsoonnahay inamadeeda iyo cagtoodaba waxaa kaloo leeyahay kalsoonida aan ku qabo ayaa waxaa ku tiiqtiiqsan karaya waxaa odhan karaya waxaan aaminsanahay waxaan ku kalsoonahay inamada cagta iiga ciyaaraya iyo kuwa baaska ciyaarayaba iyo ordada maanta aad baan u kalsoonahay haddaan ka soo jeedo gobolka Gabiley oo nahay xildhibaanadii gobolka Gabiley doortay halkaan aan imika joogno waxa weeyaan garoonkii baaskiska waxaan la joognaa kooxdii baaskiska ee gobolka Gabiley waa koox aanu ugu talagalnay oo aanu ku kalsoonnahay gacantooda waa koox aan ugu talagalnay inay Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka soo qaato koobka iyadoo caado ay noo ahayd in mar kastaba aanu koobka kala nimaadno oo kii hore noo xariisan yahay ka labaadna inaan ku xariisan doono waxaan rajaynaynaa inaanu furanno qol aanu ugu talagalnay koobabka aanu gobollada ka soo qaadno inaan ku xariisanno waxa weeye haddaba waxaan ku kalsoonnahay waxaanu ku dhiiri qabnaa waxaanu aaminsannahay waxaanu mar kastaba ugu hanweynahay waxaanu ognahay sidaanu u maalgashanay sida aanu u barbar taagannahay sida aanu wakhtiga ugu hurnay waxaan iyaguna kalsooni buuxdaa ka qabnaa inay gacantooda noogu soo dhalin doonaan inay gacantooda koobka noogu keeni doonaan inaan qolkii aan sheegay inaan ku xariisanno si kastaba haatee xulka gobolka Gabiley ayaa waxay muddooyinkani soo wadeen diyaargarowga koobka gobolada Somaliland oo lagu qabanayo magaalada Hargeysa ee caasimadda geeska Somaliland iyagoo si weyn loogu hamuun qabo inay qaadi doonaan koobabka kubadda kolayga cagta iyo orodada. Farxaan Cabdi Ciise, Muqbayaha Horta Space Channel, gobolka Gabiley.